Assalaamu calaykum inta ku xiran YouTube kanaalka Mano Production. Waxaan maanta muuqaalkan ka hadli doonaa fariimahan la wadaagi doono ardayda sanadkan gali rabto jaamacadaha. Waxaan huwa haddii aad muuqaalkan daawatid inaad noqon doontid arday guuleysta. Intaan bilaawin ka hor muuqaalkan haddii aad tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube kanaalka Mano Production, fadlan isku day inaad subscribe dhaadid la wadaaga asxaabtaadana. muuqaal horey ayaan soo dhigay kanaalkeena Mano Production waxa uu ku saabsanaa muuqaalka sida loo doorto kulliyad kugu habboon. Marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sidee loo doortaa kulliyad fiican ama jaamacad sidee loo noqdaa arday guuleysta. Haddii aadan daawan muuqaalkaas waxaan ku soo dhigayaa description-ka video-ga hoostiisa ama booqo kanaalkeena gudaha u sii gal si aad muuqaalkaas u aragtid. maanta marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida ugu habboon ee loo doorto jaamacadda saxda ah ama loo noqdo arday ku guuleysta markasta jaamacadda. Marka muuqaalkan waxaan kugu la wadaagayaa 4 mowduuc oo wax badan ka bedeli kara inaad ku guuleysato inaad doorato jaamacadda iyo kulliyadaba. Qodobka koowaad waxa uu yahay iska fiiri maadada ama kulliyadda aad dooratid. Marka ugu muhiimsan ee la ogaan karo ardayga inuu yahay mid firfircoon oo kulliyada uu ku jiro ay tahay inuu mid uu asii dadaalo ku bixinayo uu jecel yahay. taasna marka waxay micno u tahay kulliyada uu jecelahay ardaygaas. Marka adigu iska fiiri kulliyada aad dooranaysid, sababtoo ah kulliyada aad dooranaysid hadda waxay noqon doontaa mid aad 3 sano soo socota ama 6 sano soo socota ama 4 sano soo socotaba. hadba kulliyada sidee ku habboon tahay waqtiga la qaadanayo ayaa waxay tahay mid ugu muhiimsan ee loo ogaan karo inaad jeceshahay in kale 3 sano inaad ka fikirtid kulliyadaas. Kulliyada waxay noqon doontaa 50 sano soo socota ama 40 sano soo socota waxa hadda aad dooratay ayaa ku shaqeyn doontaa. Marka waxaa la yiri waa in la iska fiiriyaa ka hor kulliyada inaadan dooran. haddana kulliyad fiican sidee ku dooran kartaa? Kulliyad fiican waxaa ku dooran kartaa waxaa ka sameeyay muuqaal ayaan ka sameeyay kulliyad fiican si loo doorto. muuqaalka sida hore aan ku soo sheegay waxaan soo dhigayaa description video hoostiisa ama waxaad ka heli kartaa YouTube-ka Mano Production gudaha u gashid gudaha ayaad ka heli doontaa. lama marka waxay tahay jaamacadda ma kugu habboon tahay adiga jaamacadda aad jeceshahay inaad gasho ma og tahay ama waxaa jiro jaamacado aad ku wareersan tahay tan ayaa ka fiican taas ayaa ka fiican. warkaas dhan inta ka baxay doorta koowa inaad ka fikirtaa mid adiga kula fiican ama weydii ardayda kale ee jaamacadaha hore u soo galay jaamacadaha hadda ku wareersan tahay camal. laba jaamacad camal aad doorato, tusaale ahaan 2 jaamacad ayaa dooratay, 2 jaamacad macnaha tan ama tankeyga waxaad u tagaysaa marka ardayda u tagaysaa oo jaamacad dhigto waxaad weydiinaysaa fursadaheeda qaabkeeda ama sida u socda macallimiintii ardayda shaqo magalo dhexeysa macallimiintii ardayda misfahmaan. marka waxaad qodobada hoos imaan kara jaamacadda marka loo baahan in la galo ayaa muhiim ah inaad baartid araadid. horta jaamacad ka fiican ma jirto inkastoo oo la dhaho kuwa dalkeena jaamacadaha dalkeen ku yaalo ay yihiin midaan waxbarasho fiican taalin. waxay ku dhahaan dadka kale waxay jecel yihiin dad badan horta Soomaalida waxaa la dhahaa ayaka dadka niyad jibiyaan. marka waxaa fiican inaad jaamacadda soo booqatid aadna ogaatid waxay tahay jaamacaddaas inaad soo booqatid. jaamacad ka fiican ma jirtaba. qodobka saddexaad waxa uu yahay noqo ardayga ugu horeeya. waxaa jira markii aad jaamacad galaysid ama ku soo birtid markii koowaadba macallimiinta waa kuwa tijaabiya ardayga firfircoonidiisa iyo inuu yahay ardaygan mid dadaalayo. markasta ama xilli kasta waxa lagu diro waxaa muhiimsan inaad ku gudayso sida ugu dhaqsiyaha badan ama waqti ku habboon in lagu dhaafaynin waqtiga cayiman ee lagu qabtay. wixii loo diro ardayga ugu muhiimsan ama uu firfircoon waxa loo ogaan karaa wixii loo diro wuxuu ku soo sameynayaa isla waqti kooban. qodobka afraad wuxuu noqon doonaa waxa xadin macnaha waxa laga wadaa markii la dhaho eraygan waxa xadin tug ma la wadaa maahan loo tuga jirto. horta tug waxaa jiro oo waxbarasho iyo tug iska caadi ah. marka waxa xadin macnaheed waxaa laga wadaa ha sameynin tug waxbarashanimo ah. tug waxbarashanimo ayaan ka hadlaynaa anaga. tug waxbarashanimo waxaa laga wadaa haddii aan ku sii faahfaahiyo tug koobi kareenaya macnaha qof oo wax sameeyay ayuu ka soo qaadanaya waxaas ayuu dhahay anaa samaystay ama qof oo wax sameeyay ayuu soo koobinaynayaa markaas uu geynaya. marka tug waxbarasho marka waxaas ayaa lahaa wax aadan adiga sameynin horta ha sameynin wax aadan sameynin horta ha soo koobiyeen. marka isku day wax kasta oo la sameyn karaa isku day fikirkaaga aaminsanaaw waxaas oo sameyn kartaa iska dhacday.
marka waxaan filayaa inuu muuqaalkan kaa caawiyay sidaad ku dooran lahayd jaamacad fiican oo aad ku noqon lahayd ardayga ugu fiican. Haddii aad tahay markii kugu horreysay soo booqato kanaalkan, isku day inaad subscribe dhahdid oo iskuna day inaad share u dhahdid muuqaalkan ama la wadaagtid asxaabtaada. waadna ku mahadsantahay waqtigaaga.